asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhawaada caruuray maanta sheekadii kalluunkii dahabka ahaa. waxaa la yidhi hadda ka hor caruuray qoys ayaa waxa ay deganaayeen webiga qarkiisa. waxayna ahaayeen qoys iska danyar waxayna ka koobnaayeen nin iyo xaaskiisa. wuxuu ahaa ninka nin aad iyo aad u farxad badan, laakiin haweeneyda waxay ahayd qof aad iyo aad u xanaaq badan. wax walba oo wadaadkeeda ama ninkeeda u keena ma aysan ay ku farxi jirin, mana aysan jecleen. waqtigeeda inta badanna waxay ku qaadan jirtay murugo iyo ciil iyo qaylo. ninka maalinkaas oo shaqo tago, haddii uu soo helo kalluun asaga oo faraxsan oo reerkiisa oo ula soo noqdo, si farxad leh ugama aysan gudoomi jirin ee way xanaaqi jirtay. waxayna oran jirtay waxaan maxaa nagala soo doontay. markii ay kalluunka dhibsato u arko, waxa u keeni jiray qudaar, way sii xanaaqi jirtay. arrintaas ayuu isaga noolaa had iyo jeerna waxa uu jeclaa xaaskiisa in ay farxad hesho, laakiin ma ahayn ayada mid farxad helayso. sidii caadadii ahayd, maalinkii dambe waxa uu noqday aaday baadii ama webigii. waxa uu niraadsaday kalluun. maalintii oo dhan kalluun sida u gaadayay ayaa nasiib wanaag maqaalintii oo badda ama webiga ku tuuray. waxa uu dareemay in ay culus tahay. xoog ayuu u soo jiiday haddii uu soo bixiyey oo bannaanka keenay, mise waa kalluun aad iyo aad u qurux badan, kaas oo jirkiisa aymaad moodid in ay dahab tahay. kalluunkii ayaa la hadlay. akhiiran waad isoo heshay ayay ugu tiraahday, waxaan kaa codsanayaa fadlan aniga ha i dilin. ninkii waxa uu yidhaahda waa yaabay, waa kalluun hadlayo haddana dahab ah, maxaad ahayd ayuu ugu jawaabay. waxay tahay aniga waxaan ahay amiirad la sixray, meeshaan lagu soo tuuray. waan kaa codsanayaa ha i dilin ee biyahayga igu celi. ninkii sidii ayuu yeelay. wuu ka furay xariggii, waxauna dib uga celshay baddii ama webigii ayuu ku tuuray. ayadana aad iyo aad ayay ugu mahad celisay. asaga oon waxba wadan ayuu gurigiisa kusoo noqday, nala yaaban maanta wixii uu la kulmay. xaaskiisii ayuu u sheegay wixii uu maanta soo arkay. aad iyo aad ayay u xanaaqday. waxay tiraahday, ma kalluun dahab ah oo amiirada intaa heshay aad webiga isaga celisay adiga oon waxba ka codsan. waxay leedahay ku noqo oo wax noo soo weydii. wuxuu yidhahday maxaan soo weydiiyaa. waxay tiraahday waa in gurigan oo naga bedeshaa, ilan gurigan cariiri ayay nagu yahay. wuxuu ku noqday webigii. wuxuu u wacay kalluunkii asagoo u qaylinaya amiiradiidiyey. markay imaatay waxay tiraahday maxaan kuu qabtaa. waxa uu ku yidhaahday xaaskayga ma ahan mid faraxsan, waxay ka dacwoonaysaa guriga oo waxay leedahay guriga nagu yaryahay ee amiiradda noo soo weydii guri weyn in aan helno. waxay u jawaabtay, orod gurigaaga ku noqo, waxaad arki doontaa sida aad jeceshahay. gurigii ayuu ku soo noqday, mise waa guri aad iyo aad u weyn. xaaskiisiina meeshaas ay joogto. aad iyo aad ayuu u farxay. habeenkii markii la gaaray la seexday, haweeneydii ma aysan seexan. waxay ku fakaraysay waxa ay subaxdii dalman lahayd. markii subaxdii la quraacanayay ayay waxay tiraahday, anigu kuma faraxsanay gurigan, waxaan rabaa guri boqortooyo ayaan rabaa. ninkiina webigii ayuu ku noqday. wuxuu u dhawaaqay kalluunkii ayaa u yimid. waxa uu yidhaahday, amiiradaydii, islaanta xaaskayga ah gurigii kuma aysan farxin oo waxay rabtaa guri boqortooyo. kalluunkiina wuxuu yidhaahday, orod guriga ku noqo. ninkii markii uu soo noqday, mise waaba guri aad iyo aad u weyn, aad moodid guri reer boqor ah. xaaskiisii ayuu imaaday isagoo faraxsan, rajaynayana in ay farxad heshay, laakiin ma aysan faraxsanayn oo weli xanaaq iyo murugo ayaa ka muuqatay. waxay tiraahday, aniga ma doonayo guri boqor, aniga waxaan doonayaa boqorad inaan noqdo oon dad badan aan u taliyo. ninkii oo murugaysan ayaa wuxuu kusoo noqday webigii. kalluunkii ayuu u wacay. kalluunkiina wuxuu yidhaahday, guriga ku noqo, waxaad la kulmi doontaa waxa aad jeceshahay. ninkii gurigiisii markii kusoo noqday, mise waaba guri boqortooyo oo kii ka weyn, shaqaalo badan ay joogaan, albaabkiisana la waardiinayo. gurigiisii ayuu hore soo galay, mise waaba xaaskiisii oo taajka boqoradda xiran, dad badanna ay ka amar qaadanayaan. aad iyo aad ayuu u faraxsanaa oo wuxuu dhahay, ilaahayow midaaysan wax kale aniga aysan i weydiisan. habeenkii markii la gaaray oo la jiiftay, wuxuu ka baqay subaxdii inay su-aal la imaato, laakiin haweeneydii
cirka ayay fiirisay, qorraxda ayay aragtay iyo xidigihii iyo daruurihii. Waxay tiraahday amiirada u noqo, anigu waxaan rabaa boqorad daruurahaas degan in aan noqdo. Ninkii waxa uu yidhaahday maa naga daysid, wax walba waa inoo samaysay amiiradaas. Laakiin islaantii aad iyo aad ay u xanaaqsanayd, waxayna dul saartay amar, ku noqo idhaahda amarkayga qaado. Wuu soo noqday, kalluunkii ayuu u imaaday, wuxuuna u sheegay waxa ay xaaskiisii ku tiraahday. Kalluunkiina waxay dhahday orod waa yahay ee ku noqo gurigaagii, waad helaysaa. Markii uu soo noqday, wuxuu imaaday gurigiisii meeshii uu ku yaalay, laakiin nasiib darro meeshii guri dhanba kuma uusan oolin. Aad iyo aad ayuu ninkii u naxay oo xaaskiisii iyo gurigiisii meeshii maba yaalaan. Wuxuu ku soo noqday kalluunkii asagoo u dhawaaqayo. Waxay tiraahday wuxuu yidhi xaaskaygii aaway. Waxay tiraa soo ma dhihin waxaan rabaa daruuraha inaad dego. Ayada daruurahay degtay kuma arki doonto, adiguna ma aad arki doontid. Ninkii aad iyo aad ayuu u naxay. Wuxuu yidhaahday amiiradaydii xaaskayga unbaa wax kaa codsan jirtay, anigu waxba kaama codsan jirin. Anigu waxaan rabaa xaaskaygii oo faraxsan inay ii soo noqoto. Guryahan iyo boqortooyada anigu danna kama lihi. Kalluunkii ayaa yidhaahday waa yahay, gurigaaga ku noqo, waad heli doontaa sida aad jeceshahay. Ninkii gurigii haddii uu soo noqday, mise waa xaaskiisii oo gurigii yaraha ee qadiimka ahaa joogto, oo haddana faraxsan, kuna faraxsan guriga ay degan tahay. Ninkeedii ayay soo dhaweysay, si hambalyo leh ay ku soo dhaweysay oo farxad leh. Wixii maanta ka dambeeyay, islaantii waxay ahayd qof aad iyo aad u faraxsan. Wax walba u keeno xaajigeeda waa ay soo dhaweyn jirtay, wayna ku farxi jirtay. Asagana markuu arkay xaaskiisii oo faraxsan, wuxuu ka sii qaaday asagana farxad. Oo in muddo ah wuxuu jeclaa in uu la kulmo xaaskiisii oo faraxsan, nolosha ay ku nool yihiinna ay ku faraxsan yihiin. Halkaas ayay markaa maanta sheekadeena inagu eg tahay. Caruuray maxaan sheekadan ka fahmaynaa? Sheekadan waxaan ka fahmaynaa wixii yar oo Allah ku siiyey, haddii aadan ku qancin, aadan ku farxad gelin, wax badan haddaa heshidna farxad kuma aad helaysid. Mar walba waxaa kheyr badan wixii Ilaahay ku siiyey in aad ku faraxsanaatid. Halkaas ayaan isku macsalaamaynaynaa caruuray. Wabillahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.